السلام عليكم سويس. وعليكم السلام. waxaan rabaa inaan su-aalo ku weydiiyo shan magaalo oo gobolka galgaduud kamid waxaan rabaa inaad insha allah aada ii sheegto. هيا haye دوسمرب kow عدادو labo عالبور saddex عابدواق afar عالدار. maasha allah shan mahadsanid suwaysay insha allah waa kusoo noqon doonaa. haddana waxaan rabaa inaan maa-ido su-aalo weydiiyo. maa-ido see tahay? waxaan rabaa inaan su-aalo ku weydiiyo afar caasimadood oo caasimadaha wadankeena soomaaliya kamid a rabaa inaad ii sheegto insha allah oo dhalinyarada facaaga la wadaagto. haye برعو kow ملتوينة labo بوساسو saddex دالكعيو afar مركو shan mafruuq maasha allah. haye salmo هاي see taha way أفعنا هاي waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo. waxaan rabaa gobolka mudug shan magaalo oo kamid ah inaan ku weydiiyo. هاي قلدوب kow دالكعيو labo جريبا saddex هوبيو afar حردير. shan maasha allah tabaaraka allah. salmay maasha allah taa laakiin hadaan su-aalku sii weydiiyo gobolka mudug caasimadiisaan rabaa inaan ku weydiiyo. دالكعيو maasha allah suways hadday su-aalan kaa iloobay inaan ku weydiiyo rabay gobolka galguduud caasimadiisa aan rabaa inaad noo sheegto. دوسمرب dhuusamareeb maasha allah. soomaaliyay toosoo isku tiirsadayay hadba kiina taag daranay taageera weligiin maasha allah. saasaa laydinka rabaa gabdhaheyga aada iyo aada umahadsan tihiin suways iyo maa-ido. waxaan rabaa inaan idin weydiiyo ilmaha reer miiga ah ama ilmaha reer baadiyaha ah waxyaaba ay ku ciyaaraan oo ay markay isla ciyaari tagaan ay ku ciyaaraan ma taqaaniin? haye waxaan rabaa inaad tustiin ama u sheegtaan waxyaabaha ilmaha kale oo magaalada ku dhashay ama yurub ku koray oon dhaqankooda waxba ka ogeyn oy jeclaalahayn in wax ka ogaadaan inaad u sheegtiin ilmaha markay baadiyaha joogaan oy xoolaha la jiraan ama beeraha waxyaabaha ay ku ciyaaraan aan rabaa inaad tustiin. واو ما شاء الله عادي متين هذيك ما شاء الله ما شاء الله وانا سيريسين هذا صومالي كتمدن والله ما شاء الله يا ما تنتهين هذا انا حاربنا ilmaha magaalada ku dhashay ama magaalada joogo ciyaaraha ay geela ka sameeyaan ama heeso ama sheekooyinka aan rabnaa insha allah inaad shacabka la wadaagtiin Soomaaliyeed. haye hadda ugu celiya aad walaydin maqlahay si fiican walaha maasha allah. argabdhaha caadi maha wallahi waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum salmo. وعليكم السلام. هاي maanta salma waxay diyaar u tahay inay su-aal weydiiso. allah anaaye su-aalaha qofta iweydii diyaar. هاي ما كان يربع إيماني قولي ما نلدجي مس كام kaamaa nala geeya salmoy guri waa nala dejiyey laakiin nalama dejin laakiin guri saddex maalin camal joognay kadib kaamaa nala geeyay. كامكم حاكل كرمته kaamka adama wax ka xasuusataa? ما يواهراي waa yareed miya meeqa sanaa jirtay? 4 سنة. 4 sanaa jirta sax waay maasha allah. xaqa walaad inaa su-aal iga weydiiso. salmay kaamki wax cajiib ha kala kulma wallaahi waa yaabaa ilaa dadaa xasuusta waa yaabaa. أيه kaamki markii nala geeyey galab waxay aheeday casirkii ay aheeday 11 saaco galabnimo ay aheeday ama 5 uur ay aheeday ama 11 saaco galabnimo. markii nala geeyey baana geeyey markuuna geeyey wuxuu dhahaa haye baawara u taagnay wuxuu dhahaa meeshaas taga dadka haas ma jeedin meeshaas qolkaasaa la iska qaabilaahe qolka taga. waxaan dhahaa anka qol ma naqaane dadka cadcad waa ka cabsaynaahe adi kaalana raacna geeyey. hayou dhahay maxaa yeelay anika wax cad weligeyna ma arkin iyo wax timacad iyo waa cabsihayna baanahayna hayaay meesha lasku marka waxaan sameynay meeshow nala tegay magacahaana laga qoray kadib sawiraana laga qaaday warqadaana la siiyey. marka waxa iigu yaabka badnay salmooy waxay ahayd warqadaana la siiyey ama ilmahayga dhammaan
warqadii markii nala siiyey waxaa ku qoran meeshaan kasoo cuntay lahayn iyo gurigaan jiifa lahayn lambarkiisi iyo meeshaan kasoo cuntay lahaynay aa noogu qoran warqadan. anaga marka wadankayna hadda waa laga yaabaa in wax badan isbedeleen, laakiin wadankayna anigu markaan kasoo tagaayay gurina lambar ma lahayn oo lagu aqoonsado, warqadna iyo guri ku qoran iyo meel cunto laga soo qaadahayo iyo waxaas aniga kama aqoonin. warqadii la yiri warqadan hayso inta ka bixinta inta, markaasaa dad meesha socdo Soomaalida xilligaas aad ay soo galayeen wadanka 2010 aheeday. Soomaalida waxaa dhahay wiil arka Soomaali xilay sabax meesha lagu cuntay waa meeshan, waa baxan arki waxaan qaba marka meel oo xaflada oo cunto noo diyaarsan tahay oo qatar ah oo alaab iyo adduun. ilaan meeshu saas ma ahan, meeshu waa meel oo kaam ah oo cunto laga bixiyo oo saf loo galayo dadka dhan saas ay isugu xigaan. markaas waxaa la yiri inta file ka gal hay oo ma file lagu jiraa cunto meel man fadhiisihay miyaa dhaa marka ya waxaa la wax lagu fadhiisan jiraale afartan cunto gacanta ka haayo aad file kan galaysaa warqadan waa socaysaa markii file ku dhamaadana weelala meel ka soo qabsaysaa waa taagaysaa dadka cuntada guraa. ani waxaan ama yurub anoo ma tuugsi bilaabana waligeena ma tuugsane wallahi inaan markaas wiil wuxuu dhahay may wallahi haddaan xanaaqdi dad faraxdo adiga wadankan kuma soo doono adaa soo doontay sharciga dadkan dhan qabahana ku qabahayo. marka saas markay noqotay meesha aan safki galnay waa soo cuntayna waana soo baxnay waa soo cuntay soo baxday wadankii waa November waayo waa bisha 11aad waa qabo waa baraf inta aaday dadka soo cuntay waa soo baxeen banaanka la imaaday. aniga gurigan aad ilaa warqadeeda ugu qoray ma ogi dadku waa kala tageen meela aan inta weyno xasna horta yurub maxaa idin keenay ya telefoon la siiyay telefoonki saacadii Soomaaliya waa isbedeshay waa galab 6 maqribnimo ama 8 saaco oo maqribkii ah salaadii oo maqribka ay soo dhowdahay. marka saacadii waxay soo qortay maya 6 ma ahayn waxay ahayd hal saacad marka socodiga inta meel la buuqay hal saac habeenimo ay noqotay ya ma 7 fiidnimo markay noqotay ama halka saac habeenimo inta aaday saacad waxay soo qortay 19 la ilaaha illa allah 19 ani waa yaa marka 19 markay soo qortay waa naxay 19 intaan joogna ma habeena ma maalina arila waa mugdi waa roob habeen maal waxay taan kala garaway inay habeenta u jeedaa laakiin meeqa saacad ma aha saacad 19 ay sheegaysaa. على حال markii dambe wiil aan caawiyay wiilka markuu caawiyay warqada inuu fiiriyay gurigeena lambarkiisi ku qoran yahay على حال wariyaan kugu daalin wiilka waana waday wiilka markuu nawaday gurigeena lambarkiisi oo warqada ka arkay waana wada markuu gurigeena geey waxa joogaba family koo iyo toban qof ka kooban oo hooyadii aabihile oo aabihi keenay oo gurigoodi ka soo dhamaa guriga waa ku garaaca wiilkii kuf salaamu calaykum wacalaykum salaam habaryoodaa taybaadeen alaabtoodi soo qaatay cuntadoodii gurigoodii dhex joogaanba. markaas wuxuu dhahay gurigan cidaana iska leh cidda Afrika marka hadda dadka marka ka imaada waa dad xoog badan dad qatara dad xanaaq badan awood sheegaday keeneen baas waxay yiraahdeen gurigan kaana la siiyay anu kaana degan adoogii waa soo taagan yahay asana dadkii keenay adoog markuu saas dhahay wuxuu gurigan lambarkaan waan ku yaalo lambarka warqada lambarkan ku yaalo waa gurigan cidaana iska uga biximeyneen marka waxaana lagu celiyay marka meesh wiilkii waana waday hadana khayr Allah siiyay galabtii meesha iska soo dhimay galabta oo dib noogu celiyay dib markuu noogu celiyay meeshiyaana la geeyay cidiyaa loo imaaday waa laga bixiyay maxaa yeelay gurigan 4 qofood lagu tala galay ayagana waa 11 qofood waxay rabaan inay 3 kula saar marka waxa dhacday marka cidi inay u imaadeen dadka cadaanka ah waxay biximay Soomaali uga biximay guri waxay uga biximaysiin gurigaadi ka balhidina 11 qofood tihiin guriga leedin diyaariyay kaalaya gurigiina aad cidaana ka baxa sidii marka cidina lagaga bixiyay anaka guriga habeenka u imaanay markay tahay 3 saac habeenimo ama 9 fiidnimo alxamdulillah marka sheekadu waa dheerta laakiin caaw inta ku soo koobay insha Allah nala